baahiyana haysa waxaan haysano ilaahay abuur ma jiraan ilaa baahi reebi kare waxaan rabaa in loo codeeyo waxaan rabnaa in loo baahi reebo ilaa baahi tiraahe halkan waa duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Gubadley waxa ku yaala kaaman barakacayaal oo ay ku nool yihiin shacab ka soo barakacay labada gobol ee Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe kadib markii ay abaartii ka leysay xoolihii ay dhaqanayeen shacabka halkan soo gaaray ayaa dhan kun qoys iyagoona wajahaya xaalad nololeed oo adag maadaama aysan haysan hoy ku filan caafimaad iyo cunto waxayna dalbadeen in lala soo gaaro kaalmo degdeg ah Shabeellaha Dhexe ka nimid wax ma haysano waxaan nahay 15 qoys waxaan haysanana male waa soo barakacnay wax ma haysano meelan roob oo korona ma haysano waxaan cunno ma haysano baahiyana haysa waxaan haysano ilaahay abuur ma jiraan ilaa baahi reebi kare waxaan rabaa in loo codeeyo waxaan rabnaa in loo baahi reebo ilaa baahi tiraahe waxaan rabnaa in la garab galo waxaan rabnaa in roobkan la ka dado waxaan rabnaa in hawaya wixii loo gali karo loo galo waxaan rabnaa in baahida ilaahay naga tiri kale naga tirtiin inaan noo dadaashiin aan rabnaa aanay dad soo barakacay oo gacan u baahan iyo gargaar u baahan wax kastaba u baahan waxaana intaasoo ummadoo marase oo meesha wada joogtaanahay dhaxanaan ugu dishay bacyaal ma haystano roobka laga gabaato ee wax la cuno lama haysto dhar la xirto lama haysto waxaan gargaar weydiisanaynaa ummadaha islaamka iyo caalamka intiisa badan intiina gargaari karto intaas ummadoo meeha degan oo dhaxantaan degan waxba aan haysanin waxaan rabnaa in loo gargaar ilaahay ayaa iska leh rabnaa inaad noo gargaartiin wadada iska baahananahay waa noo jeedin daruuftana hayso meel walba ood joogtiin iyo meel walba ood nagu garab qabatiin allah idinla garab galo allahna idin soo dhiibo qofta waxay haysiin alla u soo dhiibo ay ku wanaagsan tahay baakacana booraa magada karno baaka oomaa magada karno baahiyaan hayso waagi bari koob shaaho ma karsa karno Cabdullaahi Maxamed Xuseen gudoomiyaha dalladda kulmiye oo ah dalladda u samaysay dibudejinta ayaa ka warbixiyay xaaladda nololeed ee dadkan isla markaana waxa uu sheegay in iyagu intii tabartooda ay u sameeyeen shacabkan barakaca balse ay u baahan yihiin kaalmo kale inay dadkan u gargaar u baahan yihiin cid walbana inta karaan keeraho ay ka geysato dadka hadda xaafadda iyo guddigan gacanta ku haayo 30 boos waxaan ku falnay $1,500 dadki waa dijinnay musqulaan u gelinay tubooyinaan u gelinay karaankaynu intaasoo la egahay waa dhaaf weynay dawlad naga gacan weyn waxaan rabnaa gobolka Banaadir annagoo baaqi fulihayna degmada intaasaan sameynay way hadda ka dambeeya dadkaanu sida aad arkaysiin ma haystaan wax baa ma haystaan roobku hadduu yimaado waxay uga gabaadaan roobkan her iyo habeen socdo korkooda ku dhammaadaa waa dad haween leh oo maras leh oo caruur leh oo waayeel leh oo asaay leh oo agoon leh oo cuuriyaan leh oo dad lixaadkooda uusan dhammaystirnayn leh waxaan rabnaa muddo dadku waa cusub yahay 2 biloodaan ku haynay gacanta tiradoor waxay ka kooban tahay 1 qoys Shilaawa Cabdullaahi Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho